نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، ويسر لنا بفضله ورحمته تلاوة القرآن، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن إن شاء الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى جعلنا من أهل القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى نقدر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة القرآن الكريم. بركة waxaa la yidhi muxaadaradu waxay ku saabsan tahay qur-aanka iyo fadligiisa iyo waxoogay taariikhda xifdiga ama barashada qur-aanka Soomaaliya. bal intii Ilaahay naga waafajiyo ayaan wax ka oranaynaa, inkastoo mawduuca qur-aanka ku saabsan iyo ka hadalkiisu oo u baahan yahay muxaadaraad aad u fara badan iyo waqtiyo badan. allahna waafajiyo in sha allahu tacaala. marka koobaad, qur-aanku walaalayaal waa hadalka ilaahay jala jalaaluh. fadli intaasaa ugu filan. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الله جل جلاله iyo khalqigiisa miyaa laisku soo qaban karaa, miyaa la isbarbardhigi karaa? sidaasoo kale ayaan hadalka ilaahay iyo hadalka makhluuqaadkana aan laisu soo barbardhigi karin. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. كلمة sideedaba qiimaheedu waa qiimaha meesha ay u nisba sheeganayso ama qofka ku dhawaaqa ama ku hadla ayay la qiimo tahay. oo hadda kelimadda ninka caadiga ah ee meelahan iska jooga oo oranayo way ka duwan tahay kelimadda ninka mas'uulka ah ama waddan madaxweyne ka ah ama wasiir ka ah. kelimadda uu yidhaa iyo kelimadda nin shacbiga ka mida uu yidhaa isku qiimo ma ah. yacni dadku isku si u qiimayn maayaan. boqorrada iyo madaxweynayaasha iyo wax la mid ah haddii xataa salaan ay isu diraan, raadiyaasha idaacadaha iyo telefisyoonka laga sheegayaa salaan bay direen. adigu haddaad kun goor maalintii cid salaanto telefisyoonku kuma sheegayo, raadiyahana lagaa sheegi maayo. maaha macnaha in lagu xaqirayo, waxaa weeye sidaasaa fitradu ilaahay u sameeyey ay tahay. kelimadda qiimaheedu waa qiimaha meesha ay ka socoto iyo qofka loo nisbaynayo meesha loo nisbaynayo. sida hadda maalan ilmaha yar kelimad buu ku dhawaaqayaa ama arrin buu odhanayaa. arrintaas uu yidhaa ama sidaa uu hadlay, qofka dhegaysanayaa wuxuu dejinayaa booska uu u dhigmo ilmahani. maalan waxaa laga yaabaa inuu yidhaa aabbahay baa baabuur ii soo gaday, isagoo kuu sheekaynaya. hadduu doonad wuxuu ku odhanayaa aabba maanta ama hooye diyaarad buu ii soo gaday ama hooye diyaarad bay ii soo gaday. markuu saa leeyahay ilmaha yar u fahmi maysid inuu diyaaradda weyn ee lagu duulo ee lagu safro u jeedo. waxaad u fahmaysaa wax lagu ciyaaro inay tahay. soo sidaa maaha. walow yuusan isagu kuuba waadixinin oo ku caddaynin, laakiin adigu saasaad u fahmaysaa. maxaa yeelay waxaad la qiimo dhigaysaa kelimadda ka soo baxday, kelimadda meesha uu isagu martabada uu joogo. wacalaa haadaa faqas, hadday arrintu ay sidaa tahay, kelimadda ilaahay xaggiisa ka timaadaa bal qiimaheeda ka warrama markaa. ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، فهي أفضل الكلام. marka hadalka ilaahay waa afdal الكلام.
هذا الإلهي هي هذا الغير كي سنة ليس ما بربدي كرا ليس ما بنسبين كرا حوجة إن تذكر لفهنسيون بالنبي سأولها وفضل كلام الله على سائر الكلام تفهيما للناس بساوي رمويه ما بليس صوبر بردي كرا هذا الكإلهي أبوره أي حنباري وين كما قال ربنا جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بوره أي حنباري كروايين با إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كحنبارسي وأتيسيري وأسهلي إن يكون واقعان ويكون هضلان ويدقيستان هذا من تيسير الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرؤوا ما تيسر من القرآن هذا إلهي سبحانه وتعالى تيسير لهين أما أسهل لهين وما سهلناتين كوما سهلناتين كلمة حرف قرأ هذا الكلاه تقول واغضو بل يكوما سهلناتين إلى المغشه إلى الدقيسة ولكن وتيسير من الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن كإلهي ولا ليال وهذا الكاوين عظيم ربي جل جلاله وكسو دجيي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الضسعتان ساد ضسعتان با وحو كل شيء وكل حكري قوم كي سير قريشها بعد ماشي ugu dambeysay taagnaa بعد ماشي ugu dambeysay gaaray asnaam iyo dhagxaan iyo waxyaalo geeda ay ka qoreen oo gacantooda ay ku sameysteen caabudi jiray bal cibaadada ay caabudayaan heer ay gaarsiiso in ay ilmahooda oo ayagu dhaleen iyaga dartood hortooda ku gowracaan قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ضلال ماشي قدام بيسي كتاغناين قوم كاسا نبيين صلى الله عليه وآله وسلم كدحد الشيء رحمة الله تعالى ينحريستيسا إلهي سبحانه وتعالى ديموتي وحا إلهي سبحانه وتعالى قآميي وقدر وقضى إنه كسر دحساره واحدا منهم رجلا منهم سيدوا القرآن كبكيري أكأوليه سبحانه جل جلاله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين رجل منهم بؤها صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله تعالى إلهي الرنتن ونبينا عليه الصلاة والسلام الدياري وقتل قلي إنه خير الأنبياء ونقضوا نبي ذكي قدام بيه ونقضوا تهيئوا سميوا ودياري marka nabigeenu sallallahu alayhi wasallam say ku barbaareen qowmkiisu kuma barbaarin waxyaalaha ay ku dhacayeen kuma dhicin sanamna macaabudin ilaahay baa ka dhowray allah ka xifdiyay jalla jalaaluhu yaraantiisii baa ilaahay tahiray waxa dadkiisu ay ku jiraan inay aad u foolxun yihiin wuu arkay hase ahaatee meel uu ka bilaabo garan la'aa siduu uga joojiyana wuu garan la'aa waa markuu ilaahay leeyahay wawajadaka dallan fahada ay wuxuu ka baadiyeysnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dariiqata alhidaaya dadkiisu inay qalad ku jiraan wuu arkaa laakiin suu hanuuniye garan maayo wuxuu kala hadlay ilaa waxba looma waxyoonini marka nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam
من يرانتيسي ويلفوا الحميد وحقوم كيسو أي كجيران لأن فطرة ذا بديلي سبب قرآن كنا وكسوع العليا إنبضا فطرة الناس سيدا إلهي ضدك فطرة الله التي فطر الناس عليها إن كون كان رب ليهي إن مخلوقات كان أين إسكسم اسمنه متسميه أجره كاسنا أمد قرأوا يهي ملكيا إيا بقرتو يدا إيا معركتي نظام كان عجيب كإيه aan isdaba maraynin ee shaqaynaya habeen iyo maalin qorax soo baxaysa oo dhacaysa oo aan weligeed min maalintii ilaahay abuuray ilaa yawm alqiyaama aan isbedelaynin oo ilbiriqsi soo daba maraynin waxaas iskama ahaanin rabbi baa sameeyey fitradu saasay oranaysaa walaakin shaydaanka baadiyeeyey oo waxyaalo kale oo xun u qurxiyay kolka baadiyeynta oo shaydaanku dad kale baadiyeynaya baa kala darajaadaho kuwaas ugu foolxun waxa ugu foolxun wax isagoo ilaahay bani aadam ka dhigay oo sharaf yeelay oo qiimo u yeelay wuxuu isagoo gacantiisa ku samaystay inuu caabudo bal heer waxay gaarsiinaysaa ay timirta intay ilaah ka samaystaan hadhow ay caabudo ay cunaan markay gaajoodaanna waa cunayaan marna ilaah buu u yahay heerkaasay ahaayeen maxabada iyo kalgacaylka asnaamta quluubtooda uu shaydaanku u geliyeyna waxay keenaysay inay ilmahoodaba u gowracaanba nebigu sala allahu calayhi wasalam baadidaas iyo dalaamka iyo mugdiga koonkan oo dhan oo ku jira ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisa diyaa'a iyo nuurka ah buu ilaahay qalbigiisa ku soo tuuray wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina waaba ruuxba فكأن الكون كله كون كان أردن بوحوا بها جسد وبلا روحه فحال روح النغضي كلام الله الذي هو القرآن وهو الهداية أي الروح النغضي روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نبي عليه الصلاة والسلام يسوق كليس مل غار حراء يعني كو اعتزالي وهل كيساس ربك كو عابدية يتحنث بمعنى عبادة ليس عبادة أحري معها مواركه وإنما عبادة دي سوحيد بها للتفكر هي جلوس هي فكر ينو فكر وحن اسمه دقمان كون كان خالق أبوري رب العالمين يا ملك الملوك ذو الجلال والإكرام يددك ونعمين وحال waxay doonayaan siinaya wahum yacbuduuna غayr allah arintani arin saxabaaha halkaas uu ku cibaadeysan jiray cibaadatu tafakuri dabadeed rabbigeen baa ku soo dejiyay quraanka hadda maanta aynu akhrisanayno ee kalaamullaahi ah iqra bismi rabbika alladhi khalaq bayka bilaabatay jibriil baa halkaa ugu yimid waad wada maqasheen qisadaas ma uusan filaynin ballan horena uma sii dhaxaynin كما يدحينين واو يمد واو قبتي ولبا بو يعني جهدي وحو كسميي يعني واحد اوران كرتا و توجيي او سغو يودن بو روحي او نفتي بابا اني كبخدو كبقي كبدد واسيداي وحر اقرا وما اقري النبي وحو ما اقري نبي القران كإلهي وكسو قلبي كسو دجيي afkiisana uu ku aqriyay laakiin gacantiisa waliga waxba kuma qorin wax akhri la qorayna ma akhrinin wama kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba almubtilun erga nabigu min sifatihi oo lagu amaana waxa kamida ummi buu ahaa la yaqra wala yaktub dabadeetii buu u sheegay jibriil oo wuxuu yiri waxba ma aqriyaanu hadana waa ku celiyay مر لباد وحنوجي اقرأ وسيداي ما مركز صدحات أيو هذا الكي إلهي وحيودي بو كو أخذ الأخرية اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك مقع ربك
وأول كلمة ومن كلام الله قلبك النبي كل عدد دكتيسنا يمقص ووحي أهري أديدي وحين كب اللابتي ألصق شيء بالإنسان وهو الربوبية باسم ربك كي برباري كي أبوري كي نعميني إلهي جل جلاله مقع عبدا بوليه ولكن مقع ربوبية الصنية أي ألصق إن شيء بالإنسان في مقام الحمد لله تعالى إيو جعليسين تمرك قفك اللي جعليسين ربك ربوبية لقال الله اقرأ باسم ربك واكما الذي خلق في وحبوري وحيا رب ذنبو ربك أبوري يعني من صفاته وحاكم أنه خالق وحكسته الله أبوري سقى أبوري لكن هذا أرنت اللوجي ذا القرآن كان لو سود الجنيو مخلوقات فربضن بعدونك كنول أما مخلوقات فربضن بإلهي أدونك سمي أما هنول هذين أما جماعة هذا واحد وانتابه هالنقضة هذا يقول له مو ذا جيدي إنسان كان لو جيدا مركزا سخاصة وحلويني خلق الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق كي أبوري محو أبوري خلق الإنسان إنسان كو أبوري وغير الإنسان ما أبوري الماء هو أبوري لكن هذا أذى لقو جيدا وركان أذوك وقو سعودا هذا كان أذى لقو سعودا جنيا أيها الإنسان خلق الإنسان من ماذا خلق محو كأبوري إنسانك من علق بك سمي وحنجر ليقا ويان مفرد كيدو علقة جمع كيدونا وعلق محاس أرنتان لو حسي بالليل سيجارة لو حسي إلا أن إنسان كتكوين كيسي أبوريتان كيسو مراحل بدن بوسو مرحلة مراحل شكم ذا ما بجرين با كبعد إلهي با سبحانه وتعالى وحوك أبوري عيد كأبوري ولبضاس أصلبا وإلهي ونون نسبيا إنسانك إن نطفنا لغا أبوري إن علقنا لغا أبوري إني خالق بشرا من طين بشرا من طين وآدم كل ذات كلنا إلهي يسوي ذاتك الله هذا يوحي أننا ولا هذا يوحي هو الذي خلقكم من تراب لأن أصل كأنها تراب لغاها أبهم بترابها عيد ولا أبوري خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة تراب مرحلة أهي نطفة وعنوفة والمقصود بها المني قصد ربك أنه شيء واكو إلهي ليه سبحانه وتعالى مما فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب مرحلة النطفة مرحلة أهي مرحلة على قل إلى باجرت حنجر ليقه أروتي أو رحمك الأمهات إلهيك أبوري هذه هي مرحلة العلاقة وحسيقار الله حسيبا لين ومرك وإنسانك أغو ضعيف سيهي أغو تقدرين نطفة مركو أها مستودع بو أها وميل بو كوكهيد سنة أو أما دبرك رقوكو أما هوينك ما ركتي لابتودا مركو ويسك أرديين وواح مشكلة ميشاسي مجرين مركو نطفة أها لكن مركو علاقة نقضي وحنجر ليغا نقضي ووليبا انتو المقالين كهو يديس انتو قالي سوغو واح مسمارا ميشا لغو دجين واح كولي إيو لزغانا لغو دجينين هالكا كل حجري سوغو الحنجري يرو ليغا مركاسو ugu taag daraa markaasuu miskiinaha marka iyada kan ka warhayay ee ilaalinayay ee abuurayay ee u nicmeynayay ee ka ilaaliyay inuu meelahaas hooyadiis markii ay socoto inuu ka soo daato ka soo dhaco waa rabbigaas weeyaan jalla jalaaluhu فيا محمد هذا لغو لهدايا ومن خلالك dadko dhan baa la hadlayaa kuwa meesha fadhiya hadda iyo kuwa iman doona la hadlayaa ربك مجعيسى اقرأ به الذي خلق الإنسان من علق وأول تعريف هي إسبرد وربك أن إسبريه إنسان كإسبريه أنا على قذا كاسمي مياه خصوصة مركب من سواد اللودي هذا ما أنت واد ويناتي
magac baad yeelatay xuquuq baad yeelatay lacalla wacasaa mansib iyo makaano iyo baad yeelatay walaakin yowm min alayaam oo waxaa ku soo martay aad calaaqa ahayd xinjir yaroo dhiiga aad ahayd halkaa aad ku jirtay dulumaadkaas oo raximka ummiga aad ku jirtay yaa ku ilaaliyey yaa kaa warhayey yaa kuu nicmeeyey yaa inaad meelaha aad ka dhacdo oo hooyadaa ka soo daadatay yaa kaa ilaaliyey allah alladii huwa man rabbuk rabbigaa ah ee ku barbaariyey ee ku abuuray ee kuu nicmeeyey ee nicmadiisa ilaa hadda aad ku jirto alladii khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka majlis kaste oo walaalayaal la fadhiisto arrin kasta oo laga hadlo mowduuc kastoo la isugu yimaado nabigeenna calayhi الsalaatu wassalaam iyo ambiyadii oo dhan iyo sunnatu alqur'aani fi اdacwati ila allah taasaa laga bilaabaa kow rabbi baa la isjeclaysiiyaa leanna waxa la isugu iman ama caawa halkaan isugu nimid ama aan iskala hadlayno ama aan iska waaninayno waxa weeye inaan rabbigeen jala jalaaluhu ateecno oo awaamirtiisa qaadanno oo sunnadii nabigeenna ku dhaqanno calayhi الsalaatu wassalaam marka awaamirta ilaahay in la qaato nawaahida uu naga reebayna laga fogaado waxa weeyaan waa takaaliif waa mashaqa waa waxyaalo culays oo lagu saaray weeye waa waxyaalo abuuritaankaaga si haddii la fiiriyo ka soo horjeeda insaanka abuuritaankiisu awaamirta ma jecla nawaahidii waxa laga nahiyeyna waa jecel yahay oo waaba tuu rabbigeen noo sheegay jala jalaaluhu wanaha الnafsa can اlhawa waatuu nabiga leeyahy calayhi الsalaatu wassalaam xufat اljannatu bilmakaarih waxufat الnaaru biالshahawaat wax alla waxa wanaagsan ee camal ahee jannada ku geynaya naftu way necab tahay makaarih baa ku xidaaban ay naftu ay kahanayso oo salaada iyo cibaadada iyo daacada iyo waa dhib weeye oo naftu maaragtay way kahanaysaa oo ma jecla waxyaalaha ilaahay nafta uu ka nahiyeyna naftu way jeceshahay marka takaaliiftaas iyo awaamirta inta aan laga hadlin aan ma garanaysaa laysu sheegin waxaa laga hormariyaa oo had iyo goor laga yaabaa ducaadeennuna inaan iska ilowno ama ka ilduufno horta bal aamirkan wax amray naahigan wax nahiyey jeclaysii kan intaadan u sheegin amarkiisa bal horta jeclaysii bal horta uga sheekee bal nicmooyinkiisa dareensii oo waxaa tidhahaa yowm min alayaam ninkaagan weyne magaca lehe fulaane sheekh fulaana ama xaaji hebela hadda ama wasiir hebela ama waxaa doontaba noqee ama cala alaqal yacni magac weyn wata yowm min alayaam calaqaad ahayd oo ogow nudfaad ahayd calaqa ka bacdina mudqaad noqotay gabal yaroo hilib ah mudqa maxaa loogu bixiyey waa inta yacni mar qura la calaanjinaya ama la cunayo hilibka ah hilib yar baad ahayd hilib yar ayaad ahayd ka bacdi baa ilaahay mudqadaas hilibkaa yar gabalkaa yare hilibka ah baa ilaahay subxaanahu jala jalaaluhu cidaamkaaga iyo lafahaagan ka sameeyey nafta lafahaagan naftooda waayo walaakiin markaas aad bay u yaryaraayaan markaasaa ilaahay tarkiib sameeyey oo yacni lafihii madaxa iyo lafihii daamanka iyo lafihii garbaha iyo kuwii ma garanaysaa feedhaha iyo kuwii gacmaha iyo kuwii lugaha waxa dhan isku rakibay oo markaasaa ilaahay nidaam cajiibla u sameeyey oo markaasaa laazim tahay inaad qofka xusuusiso oo tidhaahi oo annagu waan wada xusuusanno oo adigu aad xusuusato oo kan haddaya uu xusuusto oo ilaahay ma awoodin inuu hal laf iga dhigo kulligay aan marnaba liicaynin hal laf qura ah sabba waaxida sida birtaas meesha taagan ama qorigaas aan dhinacna u liicaynin ilaahay waa kaa dhigi kari walaakiin wuxuu kuu sameeyey 360 xubnood oo maaddo lasij ahoo jilicsanoo u dhexaysiiyey lafaha si ayna isu xoqin oo dhibaato aynooga dhicin waad aragteen hadda marka oo la yar weynaado oo jilbaha iyo waxay ku yar xanuunayaan waxay ku leeyihiin dhacaankii baa ka dhammaaday oo dhacaankaasna goormaad ogaatay yaa kuu sheegay dhacaankaa lagu leeyahay jilbihii bay ka dhammaadeen jirkoo dhan bay ku jiraan fartaasay ku jiraan fartaas 3-4 dhacaan baa ku jirta oo
lafaha kala ilaalinaysa haddii kale xanuunkeeda umaad adkaysateen iyadaa jilbka ka daran laakiin waxaad sheeko aad ka warhaysa ma ahadu xubnahaasaa ilaahay kuu sameeyey oo islaalaabay lafaha baa berigaa ilaahay abuuray weliba 3 mugdi hoostood ku abuuray yakhluqukum fi butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin 3 mugdi hoostood waxaa hadda marmarka qaarkii waxaan idhahaa khaasatan aniga waxaan aada u marmaraa qolooyinkeenna soomaalida oo yurubta iyo gaalada iyo maraykanka iyo dhulalkaa tegayo yacni aada ugu sii imbihaarsan oo la yaaban farsamadan cusub ee dadka hadda ma garanaysa kulligeenba saasaan iminka wadannahay oo waxaanu ku mashquulsannahay masnuucaat albashar baa naga mashquulisay inaan makhluuqaat illaahi ka fikirno oo fikirka xagga makhluuqaadka ilaahay iyo cadamadiisa iyo weynaantiisa iyo xataa naftaada wa fii anfusikum afalaa tubsiruun waa amru rabbaani laakiin ma inta badan kama sheekaysano mana is xusuusino qofkuna ma xusuusto laakiin wuxuu xusuusan yahay jawaalka iPhone hadda soo baxay iyo kii kale muxuu ahaa saaxiibka ahaa Galaxy hadda soo baxay iyo alaabtana hadda la soo saaray iyo kana la keenay waxana la soo kordhiyay waxana ku indha sarcaadsannahay horta kuwaan aad la yaaban tahay waxaan ay sameeyeen waa horta waa kuwa sameeyay waa insaanka ilaahay abuuray way ثانيا meesha uu ku abuurayna waa 3 mugdi hoostood تحت ظلمات 3 ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم 3 مugdi hoostood baa insaanka ilaahay ku abuuray فمن أقدر منه لا إله إلا هو القادر على كل شيء إنسانكم meel mugdi waxba kuma samayn karo waxaynu ku sameeyo ma ahayna baba dhaqaaqi karo hadduu dhaqaaqana waa dhacaya ama meel buu ku dhacay mudqadaas hada hayd cidaamkaas hada hayd ka bacdi in yar baa ilaahay ku abuuray shay-an fa shay-an halkaasuu rabbi kugu barbaariyey janiinkaas baadu ahayd ma garanaysaa caloosha hooyadii ku jira adoo halkaa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta ku siiyey oo ku nooleeyey sheekadan inta badan marka laga sheekeynayana dadku maskaxdoodu meelahaas iyo isbitaallada iyo kuwa hadda ku dhashay yaryar bay aadaan kan hadlaya isagu inuu naftiisa ka hadlayo iyo kan lala hadlayo hadda meeshan fadhiya inta badan kama fikiro anigan weyn ma mar hore sida ahaa adigaas weyn baa sidaas ahaa oo ilmo yar ahaa oo janiin fi batni ummika ahaa oo meelaad wax ka keentay maada garanayn berigaas kan ku arzuqay waa allah jalla jalaaluhu oo xataa af wax kama cuni kartide meeshaad wax ka cuni jirtay ma taqaan berigaa yaa garanaya meeshaad wax ka cuni jirtay sheekh nuur xaggee wax laga cuni jiray subxaana allahi almalik alcadlaan xudunta iyo mindhicirka hooyadaa baa ilaahay isku xiray halkaasaa laguu soo marin jiray quudkaaga iyo risqigaaga halkaasay kuu soo mari jirtay لا وزارة بعدين تجي جرين ولا مال بعد كده وامي جرين ولا شغالنا ولا يحزن ولا أبدا واحد وقيد مجري الذي رزقك هو الله ساسا وحلليه يقينته تنقو وناكسني إلهي جعلي هذا كهرب وأديكو أفرتن أما كنت جرا أما صد جرا أما صادرته أنت رتب بجري يعني حد مركا إن ربك كوكل صون تحي كلسوني سيدي مرق برجع كوكل صوني على شو إذا كجرت برجع على شو إذا كجرت ميل مياد كورهيس عد ميل لها ذكرت ورهيب لها اللي يرفع 100 تقييم بل ميل هيب لها اللي جلس واحد 100 قرنيش يا كو أرزق يا وحكو شيء سو الله سما هذا أنا ما تجاوب باكو شيء هو يرزقك أسباب ظاهر كأوا امتحان الأسباب هي ليست رازقة وما رزق يد والو امتحانه لذلك حتى حداد أديكو حسوسا ويدا يرانت هذه إلهي مخلوقات فربضن أو أركيش وكو حسوسين وحكولين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم رزقي إذا ما بحنبارا كرتو ما نشغيسان كرتو ما لو حبك ما كيلي كرتو يا أرزق الله إيه كل قد ما إذن كان يساقون بعدين أرزق لكن لا تعلمون مؤمن أسباب تنمرك ظاهر كإنسانك إلهي بقى أصوص هاري تتكبري يقوه الرئيسي ما لغا بري مجرين إن دوك أنت لقضه وما ركتي لفهاقو أما لهاقاجي أما لفهلو بير لغا سمايو وحي كسور لهي سؤال
ama dhulka inta la faaga biyo lagala waxaasoo dhan dadku maynan ogeyn waa asbaab daahirahoo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey weeyaan oo uu baray weeyaan walaakin laysat hiya asbaabtaasi ma aha iyadu ma aha raasiq ma aha alraasiqu huwa allah ina allaha huwa alrazaaqu du lquwati almatiin marka mas'alata arububiya aan halkaas dib ugu noqonno waa mas'ala muhima jiddane caloosha hooyadaa markaad ku jirtay ee muddadaadii kuu dhammaatay kan ku soo saaray waa rabbigaaga huwa allah isagaa bannaanka kuu soo saaray waddadii aad soo maraysayna kuu sahlay dabadeed dibadda markaad u soo baxdayna makhluuqaadka kan ugu daciifsan baad ahayd xataa waad la socotaan ariga waxarta yaree dhalata ayaa adiga kaa dhaqdhaqaaq fiican iyadu markay dhalato wax yar iyadoon joogin markiiba way iska socon kartaa laakiin adigu imisay muddo qaadatay ilaa aad fadhiga barato istaag iyo socod ma ah fadhiga maalintii aad baratay eed fadhiisatay in reerkaagu ay maaragtay ixtifaal sameeyeen lama socotid baan u malaynay waa ilowday way farxeen aad bay u farxeen yani hooyada way faraxday u fadhiistay ilmihii waa fadhiistay subxaana allahi almalik alcalaam maalintii ma garanaysaa socod iyo la gaadhayna warkeedba joojiba socod markii aad socotay waxay ahayd farxad iyo reerayn bay ahayd kan socodka ku baray huwa allah rabbiga jala jalaaluhu caloosha hooyada markaad ka soo baxday ee dibadda aad u soo baxday wax aad u taag daran baad ahayd awood maadan lahayn wax nafci oo wax kuu tara ma soo qabsan kartid wax ku dhibayana iskama celin kartid wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum laa taclamuuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولكن يا حسوسا يا إلهي كم هبنقا شكرا يا إلهي لا إلا قليلا إن يرمويا ذلك رب العالمين ربنا ورب كل شيء markaad soo baxday caloosha hooyada ka soo baxday maalintii kugu ama maalin ama habeen kay doontaba ha noqotee quudkii aad caloosha hooyada ku qaadan jirtay xarigii lagu soo mari jiray waa lagaa gooyey xarigii haddii la gooyo oo bannaanka aad u soo baxday cuntaad doonaysaa markaa ilaahay afkiiba kuu furay oo afkiiba wax ka cuni kartaa caloosha hooyada intaad ku jirtay afkuma shaqaynayn xuduntaada wax ka cunaysa hadda waa soo baxday afkii baad kala furtay codkii waa kuu furmay wax cuntaad doonaysaa laakiin dadkii maalintaas reerkii waxay karsadeen bariis iyo baasti iyo alaabtaasay karsadeen iyo hilib iyo ma cuni kartid marka see wax lagu yeelay bal fiiri raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala mar alla markaad soo baxday baa caano ilahay hooyadaa ka keenay oo caanahaasi xaggay ku maqnaayeen markii hore marar badan hooyadaa waxaa soo martay iyadoo iska gabadha iskoo kada iyadoo markay xataa uur lahayd caano ma jirin maalintaad soo baxday soo bixitaankaaga iyo caanihii baa wada socday yaa isku beegay rabbuk liyurabbiyak muxuu saa u yeelay inuu adiga ku barbaariyo lianna markaa iyada ah wax kale kuma suubadaan cunto kalena kuma anfacayso xataa waxyaalahan dadku marka dambe ay sameeyeen oo waxaan sanaaciga ahoo laban sanaaciga iyo waxaan oo dhan wax wanaagsan ma aha way ka sheekeeyaan inayna wanaagsanayn oo hadda waa la socotaanoo يعني أدبر لوجه شكيا فوائد الرضاعة الطبيعية فائدة إلهه عنه هو يمادين أدينا واتمد لكن ياكو بري ما يشان سيده وحلو لغا صبح كيف ترضع إذا نفتر كذا وعملية وبهن هول علمي علم الرضاعة من علمك ربك الله الذي لا إله إلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كان شنبرتا بري إنا إنتي تكتو أو يمالها كسو أرورسته geedaha iyo caleemaha iyo laamaha meesha ka dhacay guri wanaagsan oo dadku isagoo kale ay sameyn karin sameeyay ilaa iyaduna kulliyada handasa kama soo bixin guriga ay sameeyay shimbirta ma aragteen farta sama galiseen farta haddaad gudaha galiso firaash waxaad u tagaysaa firaashkaaga ka layinsan oo ka jilicsan yaa u sheegay inay gidaarkana adkayso
firaashka waxay ku firaashtaa baalasheeda ma aragtay iyo bay ku firaashaysa aniga farta waa galiyay waan arkay firaash cajaa'ib leh meesha dhigan geesahana waa gidaar adag oo dabayshi iyo roobkii wax dhan aan karay yaa baray kulliyadee ka soo baxday فهي مخلوقة لله إلهي رب العالمين رب الكل رب قاس سبحانه جل جلاله ويا كان كبري إن آد عانها آد هو يداد كنوكت هو الذي رباك حديدتك كلا لقبوسي دين لها كمي برين كمنا شاقين الصومالي لما تقاند في الجريش لما تقاند في عربي لما تقاند أفضل قرنيش مجرو وأمرك ربي أن حسوسين أنه هو وين ونليه والله الله وكما الذي كيوي أخرجكم إن كسوسار من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وحبائلكم قرنين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولكن قل الشاكرون وقليل من عبادي الشكور ربي أنك دون يمجر إلا الاعتراف إن النعمة دي سوء اعترافته أو ترى ربي نعم أنت ربي هذه أي أبو رينو جري هذا مراحل شاس كلا دوان انتاك تضرر مسكين كهاين وحباء قرنين وحباء كلا وي هذا يسو مري هذا يسو برباري أنت الذي ربيتني فأنت ربي إن تلاهي أنت سو ربي إن كان ربا كم هذه وشكرا تلاهي هذا سهل تلاهي وكوزي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد من عجائب كرمك إلهي وحكم ذا عنت أعد عنتي أما قذها النقط أما قراح النقط واحد دونتها النقط وهذا أول شغبة كلها دون أهان ده واحد شغل كله هذا بريس كان أدعونه شيء يسمي بدر كان أدعونه شيء يسمي روتي كان قمح لقى سمية علابة لقى سمية من صنعه هو الله عنها أتعبيشو يا سمية أدون كورن هذا يسوع تجان دبع عنا ما سمين كران هل حبوا بريس أنا ما سمين كران هل حبوا خضار أما بهالشيء معي هاي فواكه أنا بير أما تفاحير أما موز كان سومالي هذا جعش هاي وناكسن جلاعين تحت المريء ما ركتي مقارك أما الديرك كو إلى لنا ينا إلى هدوسه وكسهاري أدون كورن هل حبوا موسى ما سمين كران وماشي مرمرك قال كان إلى قرمها مذوبي يقوى كلا تجي هذا شو تجان قوة مذوبي شو مجرهن قوة كلا تجي شو مجرهن هذا شو تجان حبة موسى ما سمي كلام حبة بريسة ما سمي كلام هذا أنا أنت شو تجان في هذا مالين لو أما مي تجان هرت من الحوينياش بيسوي سعودان ماشي شو تجان سنة استمريكا هذا يصير سعودان مها هذا ماشي ويتجد ونان مركز تنا ويتجان وهذا waxay ka socdaan dhulkii ilaahay abuuray bay ka wada socdaan oo nin walba dhul buu mathalaya meesha ay isugu tagaan wax kasta way ka sheekaysanayaan laakiin hal mar ma dhahayaan ilaahu waxaan isugu nimid inaan ku mahadnaqdo ilaahu dhul baan noo sameeyay adaa noo sameeyay aad noo sameeyay adiga noo haya oo hadaad sii deyn lahayd meesha uu ka duuli lahaa oo cil baad noo sameeyay oo qorrax baad noo soo saartaa batrool iyo benziin iyo waxba aan naga rabin ma maqasheen iyo ka sheekaynaa ما لهايا شكرا ما لهايا وأركا مركا إن يسوي مريان وين يشدوا كلن بشوي هالكاسة إيمانيا وكوكا للتجيان وأما هتنتهي ما لهايان ومع ذلك كما قويني رزقك كما قويني وإيش كديني وحب الله يا بقى إنه وحبه وكف لينين لكن مساكين تعملها إيش كجوكت ما قرنا يسا يسا هذين إيش درت هذول إيش كديني وإلا مرهر إيش كبربرين هذا بابين له هذول ولا يبالي به ذلك رب العالمين ربنا ورب كل شيء مركا إن ربي كان هدي يقول إيش حسوسينه أو إيش جعليسينه أي ولا ليال مهم جدا وهي رعانه في سورة النحل وسورة النعم للغة الماء ونعم كإله جل جلاله مركا وكشر كيني هو يتحبب إليك وإسكاج عليه سينا هو غني عنك غني بكاية إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أدو دون واحد أدوك جوورنا أنتم مرقرة البرس ولا بابي أيوك هو كلا إسكا سميسان كرا هو ما كرا
ومع ذلك يدو ساستهي وهذا إسكاج علي سينيا وما ركت النعم كي زكاة شيكينيا وإن لكم في الأنعام لعبرة وردديه أنا حولها عبرة إذن قصوغا لعبرة يعني وحويني مثل لا شربة ولا فهمي لكن العبرة ما بلغ فكرة محي عبرة ذا ستهي نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وحانو إذن كورها بالنار من بين فرث ودم ديك يؤوس دحذوذا ولا بما دول لبدو نجسه ولا بدو الريحة حليه لبدا ما دحذوذا أيان عانعت ومعان وخالص وهو لغا برحتري وأن وحبابك كجرين لا ديجي ولا أوسكي أن شغبا كلهين بانو إذن كورها بالنار وإذن كسينا سو عبرة ما سو أرن كو عبرة قادتانو أتكو فكرتانو أود إله أذكر ميسان ربي قاس إسقيه وحاسو نعمو إلى كسي هدوك إلى كلن كيغا الرمين ويوم القيامة أنت مركات لما إن ندبكو سونولين أو دبدا إلى كل ميسو رمين هدوك إلى رمين نعم أوقنوا به لأن أودا أخطو شيء أي هذا كفكرته كسلسينيس أو كوافجينيس إنها تاس كفكر ولذلك لا يحور يدبر الأمر يفصل الآيات آياتك بالتفصيل جملة مرمر إله وأوشهها خلق السماوات والأرض وجملة مرمرنا التفصيل بقى إلهي سيئة بحيوة وهذا واحد لقى شكينا مرمر قارك هذا يرشي شيئين ونوع من التفصيل خلق الإنسان وجملة لكن مركز نطفة كهذا شو وعلاقة كهذا شو وتقدر رديس كهذا شو ويسوي الكره يصوبح يكسر ومالنتو عنتو باهدي انتي هوري عانا هويدي كلي وعبي إلك أم باهنا يلكون مشاكل بهويدي وكين لها لكن مالنتي وعنتو باهدي با إلهي إلك أصو صاري وما دعو سبون هوري جرتي سو جرينا oo lafna aan ahayn laakiin lafta u eg oo la hagaajiyay oo la qurxiyay oo la kala yaani la kala qaybiyay oo qaybna laga dhigay tanaaya iyo foolal wax lagu goosto qaybna laga dhigay miciye iyo wax lagu jabiyo qaybna maaragtay waxa weeye waa gowsaha wax lagu raamsado waxa soo qayba ah oo adag oo xoog badan oo haddana carab yar oo jilicsan oo miskiina loo dhaxaysiyay oo haddana maaragtay nabadgelyo dhexdooda la dhigay wax nooc min at-tafsiil oo ku jeclaysiinaysa rabbiga subhanahu wa ta'ala baribu nin igu yiri sheekhi duca xanuun baa haye wuxuu yiri candhuufta ay ka tagtay candhuuf malihi waxaan sheekhu candhuufta maxaad ku falaysay yani candhuuf baa iga tagtay cudur ah ma ana hada koor runtii ma ana maqal yani waxaan maxay ku tartaa abaar buu aamusnaa oo yani sidii ma garanaysaa fikiro kale dabadeed hadal kelimad ana ilaa hadda iloobin buu yiri wuxuu insaanka nicmada ilaahay garan maayo ilaa markii laga qaado mooyee markuu qofku nicmada waayo gartaa hadda waxaad weydiinaysaa candhuuf waxay ku ana wuxuu yiri candhuuf waxay tartarta cudurkan meelad badan baan maray adduunka wali waa liiga daaweyn laayahay laakiin waxay ii taraysa meel uma ku sheegay hadda bariiskan aad cunayso adigu adoo ku raaxaysanayo ku macaansanayo baad cunaysaa laakiin aniga bariiska qacad bariisa ma cuni karo ilaa aan bakeeri biyo kullu qamoy لأن دعانك صوبح لها أنتوا كله جلعين لها ويان كان يجمعان ما هيش كاس ولي أنتوا عرب كيس صوص هاري وقعنتي سكوح قي بويتوا سيدنا ساقيا بملأ وحوي لتاو حكدرا انتظروا سيدنا طبعا النقطة نفتن هذا أتقاضنا يشهونا أتقاضنا يسجينك هذا شيء عادي بس أتقاضنا حول أنيه 5 دقيقة ما جوي كر إلا أنا أفكار دي كشوفون قوية موي مركا واحد ماشي هنا فرديو عنده فيني فائدة لذا كفكر ما نوجره وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما نتفكر في هذا فهذا هو رب العالمين إخوتي الكرام مركا وحان هذا الكاس عن أهر مريي سجان أنه مهم وأركا وكم مهم سن أي شيء آخر هذا صلاة مركا أن تكنين وصلاتنا وصلاة سعوتان وعماد الدين وحويان وعنوان العبودية انت بدن ربك وحد كل خطابتها أما أدخل هذا ليس مقام الربوبية الله أكبر مركا ترى
waxaad ka bilaabi alxamdu lilaahi rabbi baad odhanaysaa rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigoodii barbaariyey marxalo kasta waxay u baahnaayeen siiyey fii kulli waqt man huwa arab kii markaad caloosha hooyada ku jirtay ku quudin jiray ee quudkii kugu habboonaa markaa ku siiyey markaad caloosha hooyada ka soo baxdayna wixii kuu habboonaa oo caanaha hooyada kaa siiyey garanaysaa ee ku baray sidaad ula soo bixi lahayd markaad soo yar weynaatayna ilka kuu soo saaray ilkaha kuu soo saaray ilkahaasi wixii ay qaban lahaayeen oo ay cuni lahaayeenna ku siiyey oo maanta yani risqiga aad cunayso waa min allah walaysa min gayr illah ilaahay baa subxaanahu watacaala ku siiyey waxan waxa dadku ay cunayaan oo dhan fahuwa min risqi illah wakuluu min risqihi wey hadduu doonan ilahay uu soo ceshan karaa aman hada aladii yarzuqukum in amsaka risqah bal lajuu fii cutuwin wanufuur fahuwa rabbuk markaad rukuucda marka aad ruknigii istaaga aad dhammayso allahu akbar ay tiraa rukuucdo subxaana rabbii baad odhan rabbii alcadiim markaad kor uga baxdo waxaad odhan rabbana walaka alxamdu markaad sujuuddana waxaad odhan subxaana rabbii alaclaa haddana waxaad odhan rabbi ikfir lii baad odhanaysaa rabbi ikfir lii allahuma ikfir lii waad odhan kartaa walakina arububiya huna alyaq fi hada almakan leanna rububiyadu waxay ku xusuusinaysaa markaad janiin ahayd calooshooyda ku jirta eed ka soo bax taag darnayd miskiinka ahayd haddana miskiin baad والآن أنت مربوب لله هو ربك وهو رب الكون كله مخلوقات كون ربي هو الله عز وجل مرك ربي الناس جل جلاله عظيم كأه جليل كأه صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى له كلام عظيم اسمه القرآن فعليكم به ربي كي جعل القرآن كيس هذا الكيس هجعل هذا ربي قائنات جعلاته ومن علاماتها وحكم ذا هذا الكيس هنا جعلاته أسكري أهو ضابط أهو ماشان جوازات كمان مال أنسوقي نبا وحويري ما يعني شيخ وحويري هذه يقول مركا إمامكم نقول له صلاة و يعني مجعلنا أموان على لنا أموا كحمنا ما سببها يعني لما يعني سؤال كأنه لماذا نستثقل الصلاة يعني صلاة محي حام وليس إنه لا تهي وهذا نسكت هجنا ما أنت هذا الفاضي أنا هين ما عسل سنين لكن صلاة محي عنا ولا علوس مركوا حالي سؤال شاس أدي سؤال كلام كوجو جوابه يعني haddii waxaan idhi macaawa weliba shaqda dhexe 12 habeenimo markay tahay haddii lagu yidhaaha wasiirka ayaa ku yeeray wasiir dakhliya ilaada dakhliya ka shaqaysaa soo maha wasiir dakhliya ku rabo waxaad oranaysaa waa waqti dambe iga dahay may wallahi aruux bila aruux ay waqti mushkila aruux طيب hadaa tagto oo cabaar aad fugto ma dhaansan inta hadda fadhida haduu hadal iska sheekay iska galo ووقت دم شيء دم يضرنا إيش ما والله أجلس معه أي وقت إلى الفجر ما عندي مشكلة وحين كاسوا بوزير أمير هدوية كور رباني أمير كان قدر بهدوية هاي وحضر الله هدوء وقت دم بيجدها ما والله وهرأن كتجلح وحان إلى هذا بابل هذا هذه شو جواب هذه شو جواب فكيف تستفق يعني ما أنت وحنا نغمقا الأنس برب العالمين أنسي استئناسك ربي هذا الكيسين جعلان مركز هذا إير فريسة القرآن آخرين يسوع ما حد سمعنيش ربي قابل مقابلة لا كان كل حد يا الله جل جلاله كيف تستثقل سيكون عسلان يسار ردها وحوي يقين تبقى كام غنو مخلوقا مسكين كأما أمير هالنقطة أما ملك هالنقطة أما وزير هالنقطة أما غفير هالنقطة ومخلوق مسكينه ومربوبه ربكيس ورب العالمين ناس يديسون وبيد الله وتري كرا أما وح ودمي كرا أما وح وقبن كرا أما وح وجين كرا أما وح وديري كرا مجرو إلا بإذن الله كامر كهدي الويا رواد وعرري وجعش هاي أو كلن كيسة وح وين بكليه لو ما يصير هدي ما ركت ميعاد لقوسي ولا
amiirkaad kulan la leedahay maalinta heble ah taariikhdu inta ay tahay saacaddaas lagama yaabo inaad ilowdo fakayfa billahi caza wajal malik almuluki di ljalaali waalikraam salaada markaad imanayso isagaad kulankiisaad u socotaa axadakum yunaaji rabbah rabbigaa baad la munaajoonaysaa ood la faqaysaa marka haddii uu hadalka rabbigaa uu kugu dheeraado ninkii adigu arrintii aad buu mithaalka iyo tusaalahaas ayaa wax weyn u taray oo aad buu ula khushuucay oo yidhi wallahi haddaan fahmay cilladu xaggeennay ka socotaa istidqaalka xaggeenna waxay uga socotaa lianna laa nuqayim kalaam allah caza wajal marka qofkii ilaahay jecel waa inuu hadalkiisana jeclaado hadalka rabbulcaalamiin inaad jeclaatana khayr wadan badan baa kugu jira waa nicmo weyn النعمة العظمى والمنة الكبرى وكلام الله عز وجل إلهي أمدا سي يا أوسنقا مسحين يا أولو إلالي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعمة كوين وقرآن كما نعمة كوين هدي جرتو إلهي نبي يسوء أمنا شاق الله وح كوين ونبي يسوء أمنا شاكتي وقرآن كان هاي مجرى وح كوين لا إله إلا الله حد قاعد مقشه إلهي جل جلاله إنه يسقطره وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فضل إلهي رحمته صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قرآن كوين وإلهي أكتي سلويه هاي مركو النبي وتسيني نعمة وين يأوسي كلام الله حدي وحلقة سحبنا وحلقة سحبي والنبي اللي هديده وليلا وأنه قادن كرنا وحكوين هدي جيران قرآنك إلهي وأرون لكن إلهي مورن إلهي وحبير ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله وقرآنك كان عليك كبيرا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قرآنك مركب وحكوين بلد أهل القرآن الله نقدر أن نقنه وقرآنك أن وهل كي لنه وقرآنك فضائشه سلمك بكر معنا إلى هذا أحاديث كسوء أرورت إيمانها كهرنا ونوع من المقدمة هذا الكيك وحان كبالله بي الكلمة بمثابة قائلها الله قائل القرآن وكلمات الله وإياه وكلمة الله وكلمات الله وكلام الله جل جلاله هذا ربي قال جعشها القرآن كيس جعله وأهل كيس إنها تكمل مغطو كل دلال وإلهي ما أنت والتيسيري سهل الأمر ويسره دلال بلغات دونية إنها دلاشو وقرآن كأدبرته وأهل ورد كدقته مؤمنك وإن أونا قرآنك وإن أوسن ورد بيسو كم مغنان في كل يوم وإن هذا أقربها مهما كان ذلك المقدار سيدا أقوى ناكسا تتقوى اللبا مد إلهي بأو نعميو قرآنك أو يو حفظيي أو هرو قرآنك أو حفظيي كاسي سقى هذا الكلام لقولها الله شيكا كالوليه لأنه من عامة المسلمين ويو قرآنك ما حفظ سنة لكن عامة المسلمين ودك إلهي قرآنك والنعميو أهل القرآن ويو كل قدبة أمدنا ودوا أمة القرآن ويان كاي سقى وحلق الرباع على الأقل بشي مرقرة إنه القرآن كأقريه بالله إنك صوم إذا ما لك جزء وقت بدن كقاعدا ميسو هل جزء ده كأقريه وقت بدن كقاعدا ميسو ربما لقيا بيني شن إلى 20 دقيقة صدن دقيقة من أفر إلى 20 ساعة صدن دقيقة هذا يقول بدأت أو أتسي تجويد لي وأنا أكسر وشي أغرنا ساعة إسكابر دبا إن أقريه ولو جزءا من يومك أو بشي مرقرة القرآن كذا ميش شو أرن أدو وناكسن ما هذه الله كوافجي وحوين ويا
wuxuu yidhi kan isaga qur'aanka xifdisan isaga waxaa la yidhi 3 juz ha ka yarayn 3 juz haddaad ka yarayso dabaal weyn baa tahay baa haddaad ka badayso waa arrin wanaagsan oo subax haddaad yani usbuucii mar qur'aanka aad dhammayso waa arrin aad iyo aad u fiican haddii kale cala alaqal 10kii beri mar dhammay marka saa la leeyahay ma aha waxa uu nusuus la leeyahay oo haddaad saa yeeli weydo dembiyaad waxa weeye bitajriba ahlulfanni baa waxay dhaheen inta qur'aanka qof xaafidka uu ku ilaalin karo xifdigiisa waa in 10kii beriba mar uu dhammeeyaa hadduu xaafid yahay haddii uu saa yeeli waayo galab buu xifdigiisu iska noqon doonaa maca alayaam wadaad masri amari qur'aanka ma saada qaridaha hadal wuxuu igu yidhi meel waxaa kulley meel ku qoran yahay anigu ma arkin laakiin haddaad u fiiriso waa hadal dhaba wey wuxuu yidhi alqur'aanu ya qur'aanku wuxuu oranayaa buu yidhi man hajaranii yowman hajartuhu 10 hal maalin ninkii aniga iga hijrooda oo yani iska kaydaayo akhriyi waaye aniguna 10 maalin baan ka hijroodaa 10 maalin ninkii iga hijroodana hajartuhu shahra bil dhan baan ana ka hijrooda oo ka jeedsada hadduu bil iga hijroodana hajartuhu caama sanadan baan ana hadduu sanadan iga jeedsadana hajartuhu dahra kulla weligayba waan ka hijroodaa buu yidhi qur'aankaaba saa lahaysan qur'aanku akhriyi waayo طبعا malayn maayo inay xadiid tahay ama meel ku qoran tahay walaakin waa lisaanu xaali qur'aani waa dhab weeye maalin qur'aanka haddaad akhriyi weydo taasiirkeeda waa dareemaysa hal maalin hadday ku soo marto qur'aanka akhriyi weydo weliba dee dadka yani qur'aanka calaaqada la arrintaa aad u sii dareemay haddaad maalin akhriyi weydo 10 maalin haddaad akhriyi weydana waaba dee waxa weeyaan waa khatar weyn bil haddaad akhriyi weydana kama sii daran marka insha allahu tacaala bal aynu ku dadaalno in aan qur'aanka wehel ka dhigano oon akhrino oo cala alaqal xataa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahid ma akhriyi kara ama dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inaysan akhriya ilaah baa taysiiriya waa dhegaysanaysa ajhizadan iyo ashridadan iyo alaabtan iyo waxan iyo kombiyuutaraadkan iyo telefonaadkan iyo waxan oo dhan waxa weeye xujo weyn baa hadda dadka ku ogan oo berigii hore laga yaabo xujo weynaha saaran dadka ma dhihi kartid waxay baraan waaye ma odhan kartid jihaaskaa iska shido ama telefoonkaaga shido musxafka la bax lala soco dhegayso juuskaaga maalintii halkaas sidaa ku soco saa haddaad yeesho in badan dhagahaaga qur-aanka ku dhacaan waxaan idiin sheegayaa anigu yaraantaydii sheekh hadam ibn xaggaasaan arkaayo waa hatta sheekhu ka mid ahaa anuu yar ayaa waalidkii allah yarxamuhu waalidna sheekh cali suufi oo xalaqada igu qasbi jiray inaan fadhiisto inaan aad u yaraa waxaan ku garanayaa berigaas de hadda oday baan iska noqday laakiin berigaa inaan aad u yaraa waxaan ku garanayaa xalaqada oon ka mid ahay oo dadka fadhiista aan ka mid ahay ayaa marmarka qaarkii salaada oo lagu jiro horay i fadhiisan jiray war halkaa fadhiiso oran jiray salaada dadku ku jiraan halkaa waxaan ka dareemayaa inaan 7 jir ka yaraa leanna haddaan 7 sano gaadhay ima dhaheen safka hortiisa fadhiiso salaado lagu jira salaado gali oran lahaa sidii caadadiisa ahayd da'daydu intayd ma garanay laakiin halkaasaan ka qiyaas qaatay yani waxaan xusuustaa salaada oo la oogay oo la galay oo la aqimay inuu ilaa dadka hortiisa fadhiiso inaan gadaal ku ciyaaray waxbuu ka baqaya mugta war xaggaa fadhiiso iyadoo xaalkaygu ay sidaa tahay ayaa haddana xalaqadaas bayna almaqribi waalcishaa iyo tan bacda alfajriga aana ka maqnaan karin waa juz baa la aqriyaa maqribka iyo cishaha dhexdooda fajarka ka bacdina juz baa la aqriyaa 15kii beri mar baa qur-aanka sidaa lagu dhammeeyaa laakiin juzka la aqrinayo ayaa min khilaalihi tajwiidka laga saxayaa dalabadaas iyo ardadaa oo dadka qaarkii qiraa'aadka ay ku baranayaan oo waxay ahayd xalaqa mutakaamila bay ahayd marka yaraantaydaas ayaan fadhiisan jiray oo yani anoon xataa musxafka si fiican uga kicin karay qur'aanka ayaan iska fadhiyi jiray mana la ii ogolayn inaan ka maqnaado fasaxna ma lahayn jumcana ma lahayn ciid xataa ma lahayn xataa yowm alciid lama joojin jiro walaa ciid walaa fasax walaa ma jirin waa ku qasbanayn
wax ku khasbanayn inaan fadhiisano halkaa dabadeed waxaan arkay berigii dambe oo 10 jir iyo aan gaaray ayaan damcay inaan qur'aankii aan oo dugsi waa jiray aan tagaynay oo iska ma garanaysaa laakiin markii aan damcay inaan qur'aanka u soo jeedsado oo aan xifdiyo waxaan arkay inaan iska xifdisanahay waan xusuustaa oo markii aan damcay inaan qur'aanka aan maalin kasta juz baan yaan diyaarin jiray uu iska diyaarsanaa oo isu keenay oo isku yar hagaajiyay waa min kathrati samaa ku noqnoqodkii ma aragtay aan fasax lahayn ciid ma lahayn jumca lahayn waxba lahayn ee ku qasbanaa email hibli halka la geeyay halka lagu soo ciyaaray waxaas aysan jirin waxay keentay bifadlilaahi inaan juz intaan diyaariyay habeenkii aan uga baxo waalidka Allah yarxamahu aan uga baxo taas iska hayd في خلال شهر قرآن كسيدا سامر وحفظيهيدا تاس ويهدى مركا أن لقولي هدي يقول قرآن كدقيسه أو حلقات كهدي يقول هلا سمي ودقاها قو مركا قرآن كأكبتان وعرفك أقو كبته ولو ياذا حفظني بحضا دونت أخرس كاقي عرب كاقو هدو كبته دقيسي كاقو كبته مركا دنبي أبا وحد أركيسا حفظيه بذا أركيسا الله نقدق من أهل القرآن إن شاء الله موضوع عيقو اسكي يرباه باهي وحا كجري موضوع أخوانك أي كهدلين أو اللي يري تاريخ ذا قرآن في الصومال تاريخ ذا وحي أحي كل أنه تاريخ فربضان أو سي قرنا يا وين مسي جيران لكن وحانون أقنهي إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أن أهل الصومال إلهي ذاتك القرآن فقل نعمه إيمان وكم ذاهين waxaan ka maqlay waalidka Allah yarxamuhu in fannigan quraanka ka xifdi ahaan iyo lafdi quraanka oo la xifdiyo waligeed waa jirtay laakiin in fannigan tajwiidka ama qiraa'aadku inuu horay u jiri jiray zaman hore u jiri jiray baan ka maqlay oo indiraas ku dhacay oo kala go' dhacay oo wuxuun ama xuruub baa dhacday ama mashaakil baa dhacay ama culumadii baa guurtay ama meesha ka tagtay laakiin fannigaani inuu jiray quraanka lagu barto ee tajwiidkiisa iyo qiraa'aadkiisa oo asli horay u ahaa isaga ka maqlay hadallada aan ka maqlay waxa kamid ahay macallin dugsi looma dhiibi jirin ilaa bacda xifd alqur'aan quraanka xifdigiisa waa inuu sugnaado ka bacdi laba shayna waa inuu xifdisan yahay شاطبية أو قراءات كأ ولامية يعني إمام الشاطبي تضبط قراء وحو اللي في قصيدة ككوبا كن بقول صدح يتضبط بيت لا بين كل ماتان لامية ليلها لامية شاطبية مشهور كل نقطة شاطبية ذا وإنه سيد القرآن كو حفظ سيحي كو أيوه وتنكل شاطبية يدنا الرسم قاع ورسم القرآن يدنا وإنه حفظين وإلا دكسي قرآن مصحف حلقو قري جري لوحة أيا لقو قرية مصاحفنا ما بجرين بقى ومصاحفتا مطبوعة إلا مطبعية ما أيسن جرين بريقي هوري مصاحفتا نفس الكودة قعنتها لقو قري جرين marka macallimku i'timaadkiisu waa xifdigiisa iyo macallimiintiisu wuxuu kala kulmay marka laba shaqo waaweyn baa laga rabaa xifdigii oo sugan iyo rasmiga quraanka naftirkiisa sida loo qoro waa cilmi gaar ah iska qormaa yani qiyaas alhijaa sida xuruufta la isugu daro iyo sidoo mushafku u qoran yahay waa kala laba hadii qawaacid al-imlaa'i wal hijaa hadii la yiraahdo واحد واحد سيدا هدي مثلا كلام أو عن قرآن كأهين أن كو إملايون قركو إله واحد أقريسها قواعد على قواعد الإملاء بس قريسها مثلا الرحمن أو كلام بسم الله بدأ سو كلمة وهر يسمى بسم الله على قواعد الإملاء قرها دانكو إله بعد ياسين كيسكو مدريس ألف وهمزة الوصل يقول حيزين ليس اسم سيجارة قريسها باسم قريسها كذلك الرحمن وإن ألف كتاكتا ميم ألف كتاكتا أو نون كوغار كنغضا
وهذا على قواعد الإملاء هذه الليلة. لكن القرآن كمرك اللي قريه بسم الله بعد يسين كوان ليش قدريا هل كاسي وحي كهر تمت قياس الهجاء لأن بسم الله هديتها القرآن كأردن بعد يسين كوش قدرين لكن باسم ربك همزة الوصل قاسوا قرنتها أو سينك يبادو اسمر عسنة ألف بأود حيسا محا باسم ربك كان ألف لو كلا دحيسي بسم الله هنا ليس قدري وأرن أين كجواب كرين إلا أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله عليه قرآن كقري يو قري إلا سيدي أصحاب النبي القرآن كقرين وبلو قري يسكر لو قري ماي وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا لما أقول قياس الهجاء اللي قرأ أصحاب النبي سيقرين وبلو قري وكم بسم الله بعد يسين كم حد ألف تقول حيث اسمه درتين كنا باسم ربك ألف دحيسيسين إيقوا بك جواب كرام إيقنا إن شاء الله هدي أدنا شيء جنة وبذكر كل من محاد سيدر ويان شيء والله شيء لكن أدونك قارئ اسكو دي علقي وحرادي لكن ما لا يوحقبت سيان ولا واي لأن قياس الهجاء قيصد ولقيد وحي كسعتها قاعدة اسكو مذا مثلا إنا نراهنو سبحان قرآن كمل الله ما شيء تماده وحذا إن ألف لقطة النون كان إيجار نقطة سبحان لكن مصحف هذا هذا فيرش قرآن كأردن سبحان هذا ينون كويس كدرينين ألف تيارة كرك الله ساري ألف أصحاب تقرين معه ضبط بالله ضدك دنبا إسكسمي وضدك هرنا يعني حروف أو ملونة ما يعني أحمر يوحسي كقرن جرين ضدك دنبنا مطاعبي عن دنبنا ألف يربي دوشة كساران لكن أصحاب تقريتان كودم صحابة وحي قرين سبحان قرآن كمل كاستئتماده هذه النون كويس كدرين إلا ملك لي أو سورة الإسراء قل سبحان ربي ألف بلغو تاغيتها صدا هذا مصحف في رسول أركيس محاسن الله يالي هم يغان ماشان كريم محاسن النغط ما نعرف وياك جوابي اللجنة دي قرآن كقرتي زيد بن ثابت يرقي زيد دالو جنة وقوته يغا صورس يغا كل شيء هاي محاسن الله يالي صحابة النبي قال لكن إلهي أنه نقول نعبيه إن القرآن كنو إلالي لفظا وكتابة هذا مصحف قرآن لما أقول إلا قره حدي إلا قره وحخلاف سنسيدي الرسم قاعد وممنوع لما أقول وإجماع الأمة والذين مصحف المدينة لما اعتراف سنة هذا بسم الله ألف كتابته الرحمن إلى ألف كتابته مالك يوم الدين سو ما أقرنيش هذا حفص أقريش هذا ألف تاقرته وممنوع لما أقول أصحابته مقرن أصحابته ميم كي يلام كويس قدرين أو ملكي بيقول لي أنت هسيري أقرين لكن مالكنا وأقرين وألف تاس إن لا أقريه لقد حرير ملك يضع حروف بدن أو قرن أو حاجرتين لأقريه هي حروف بدن أو أن قرنين ولا أقرنين وأولئك بكم قريبونين يمد هالكاس مسجد كنووي ومعلم بوها دوكسي وحنو مالين الدوكسي odayaasha qaarkood garanayaan tajwiidka korku yar faafay ilaa insha Allah socotaan sheekh raxmatullahi alayhi markuu tajwiidka bilaabay dad badan baa kolkii hore diiday oo waa laga hor yimid oo dhibaato badan ba iska dhacday oo waxbaan dhibaatada uga soo yar joognay yaani kolka macallin baa bari noo yimid oo aad u careysan oo in ardadii baa inta dugsiye tajwiidka laga agfuray baa laga wada kaxaystay kolka waa careysan yahay saydku noogu yimid oo marka wuxuu yiri waxaan rabaa aniga meeshan waxa ka keentay tajwiidka la isheego bismillaahir rahmaanir rahiim mim kan adreebaysiin bal iga tuso musxafka ilaahay waa kana rahiim sooma yumkin ma hoos dhawna alxamdulillaahi rabbil aalamiin sooma nuunku sooma kor dhawna maxaa rabbil aalamiin nuunka la reebay xagee laga keenay waxu iska taagan ma ogtahay waxa weeye sidaana tajwiidkii iyo culimadii naga soo gaareen ma aniga waxa musxafkan ku qoran baan akhrisanaya buu wax kale ma ogal marka meel baa isaga laga helay waxa la yiri waaya wixii musxaf ku qoran dhoodhan ma akhriyaysaa ha
أولئك على هدى من ربهم بل أقرب أولئك ووغان محد أغتكتي إلا ألفتان أو همزة داس ألفت أصورا وهو كدام بأيا أولئك ما لديه كرام ما لما لديه كرام ومحلو أخري واي ما محلو معلمين تلقى مشو قال إيه كنا معلمين تلقى مشو قال واسكم كنا واسكم سورة أن رآه استغنى أن رآه بينها المكتة حتى شماله أن رآه ما لديه كرام ما لما لديه ومحادا بل ربكم ما لديه كرام ما وإن بل ربكم ليه والله مكم حلو يتلي معلمين تلقى مشو هذا هو شيء اللي يقول شيء يبغى كنا معلمين تلقى مشو قاري وي معلمين تي هوري القرآن كنا برين حرف حركيسن كوبيني جوكسنين waxaa lagu joogsaday sukuun reebniin alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin haddaad joogsato haddaad xiriiriso waad xarakaynaysaa hadda soomaalidu dugsiga marka ama qur'aanka ay dhigan jireen arrin fiican baa jirtay oo ah in wasliga ama xarakada kelimad kaste xarakada ay ku dhamaato in ardayga la xifdisiiyo waana arrin hadda dadka qur'aanka xifdiyaa ka maqan weey وأرين مهم لكن وصل جمينا أقول بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين إن لو جوك سيدو هلا بري وأنا ونكسنتها إن لبرو نستعين إن يقدرتها لكن لما برين وإياك نستعين اهدنا إلا إذا إذن حركة إن لو جوك سيدو هلا بري لكن طريقة الوصل إن لحريري أو همزة الوصل جنا دعش وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا وغلط وإن هداد حليل سؤال وإياك نستعين اهدنا مركز تاريخ أهم قرآن قوى قديم الصومال أبو أن عيال كيس قرآن كبرنا وسوق هذا جرين وقبل يهي قرآن كإنه يبرتان بأصلحي تمدن كان يريد مقال لماذا يسكول كان يوحن مركز لبلا غينا إن بدن وحا عادة وأهيد أسر كصومالي إن أين سكول جينين المهودة إلا قرآن كلا سوى حفظ شيء أرن آذوانا كسن بيهاي مركي دنبول ليسو كانينا وحوغي خلل واجري ومقارنة يساعده طبعا أرنتان أو غزو فكري وعالم الإسلامي وردن الولد قالمي وإن ما أردت الدين توهن إيا ضعف اللقري ويس كجرتي وأرضي يسال الله سعوتان دكسي قرآن كا دكسي ما أردت مال في عنها اجتماعها ومال إسكا ما أردت إسكا تباليسان أو خشب إيا كسميسان ودولك إسكا عيدي هاي أو markaas waliba ma aragtay markuu dugsiga tii tagayna dhar iska jaxjaxan iyo markuu iskuulka tagayna la qurxinaya la hagaajin waxaan gadaal baan ka fahamnay waxay ahayd qaswi fikri oo dadka lagu la dagaalamayo oo la doonayay in diinta wahan la geliyo min albidaaya ayay ahayd laakiin asalatan quraanka bi fadlillahi wa jirin dadkuna sidaas oo ahaa iyadoo cilmigaas horay u jiray baa indiraas soo galay دراسة سوق عليه وحكيني اللغة لغة هدلية إدتكو أي كو هدلية عامة الناس اللغة الصومالية قاعد هي إن بدن مخارجتي عربي قاعد إنه يسكورتني تاسنا خاص وما صومالي خاص صومالي وما هي حتى ضد كان أف عربي عادي قاعد كو هذلا قالوا ولي بمشاكل كذا يسكونتها مثلا هذا مسارد وكله حروف بدن با markay عامة الناس yihiin dib ay kala kulmaan markay quraanka aqrisanaya sida daalka iyo saada oo kale iyo dib badan hadaad aragto meesha in tajwiidka iyo lagu barayo waxa way طلع لسانك وما تودن ku hayn xarafka soo إذا مش إذا جاء نصر الله بسكلي وهذه لهجته قولين كلا واسك jiraan يعني وهكذا Soomaalidana حروف badan ayaa lahjadoodii iyo luqadoodii ay ku hadlayeen anu markaan saalaya waxaan ka yar diidinaya oo yar diidaya bana ogal ilaa yoomina hada in af Soomaaliga af Carabiga laga dhax saaro anu waxaan qabaa Soomaaligu inuu yahay Carabi wa uakidu ala hada waana diyaar baan u ahay inaan arintaas dood badan ka keen dood badan baan ka keenay haddaad u sii fiirsatana luqada Carabiga naxwadeedii iyo كما هو اللغة الصومالية في نفس النحو وأن أقان أنا أعلم وتقان أنت تعلم ويقان هو يعلم وأن نقان نحن نعلم حروفنا أيت هي نفسها في الصومال وسيدا ما كل هذا يريد في دين شيء ما لكن قولوا إنك كلام كل الدولار قولوا إنك كلام
ayaan kula doodaa markay dhahaan Soomaaligu carabi ma aha baan ilaaha in badan oo luqa carabiga oo aadan garanaynin baa jira qolo waxa kamid ah leeyahay ximiro al oo dhan am ka dhigta amirin birim siyaamun fi safar buu nabiga ku yeelinay kolkaas uu jawaabay laysa amirin birim siyaamun fi safar adigu ba faham baan ku ilaa ma fahmaan marka waxa loo jeedaa waa carabi laakiin garan maysi mucjizaadka nabigana waxa kamid ah baa leeyahay alayhi salaatu wasalaam wufuud carabtu intay u timaado inay la hadlaan isaguna uu la hadlo afkooda kula hadlo asxaabta kalena ayna fahmin oo Abu Bakar iyo Umar iyo raggaas afka ayna fahmaynin muxuu yahay waana af carabi hada waana af carabi kolka waxaan ilaa farc furuucda kamida uu weeyaan waxbayaan lana sii eriyeen oo oran af Soomaali waa luqa laakiin kalimaad iyo xuruuf waxa ku jira aan makharij al-huruf al-asliya haysan daadka kamida حرف الضاد مش موجود يعني بوسكي ضادك لام بالش كقلي وهذا كلمات فربضنا وأصل كود عربية هي هذا هدي أن إسلام باربان واحد بدن بهلينا كلمات فربضنا وأف عربية ولا سومالية وأصل كيدو ضادها لكن لام لا قدقي أرلذي بدتك قاركس كنا أرلذي إلهي أرلذي أصل كذا أرضذي هي ثم تو بس كفهميش واحد لر أصلها من الضر لد أصلها من الضد ولكن ما دام أون الكجر لفظ يعني حرف كهني اللي هو صومالية اللام بالغدي ساس ذلك بعد قارك ولا لا لين إسكده وغلط قار واحدهم ما تاسي وين ويرفع الحكم واللام بمشي نقطة أنا بالملك المركز مخرج أنجري لور الرادي قال كتلا سوق هذا بشنتي ولا الضالين هالكالجري وهذا أيضا خطأ حرف الطاء كمذا الطاء بوس كذي لا كجرتا دبر دينا إيو ما قرنيش فد إيو دا ولكن دا عربي كم منها قال بقى مركز كسر له صراط الذين اسكير إذن صراط المستقيم تمام قالنا واحدهم ما يودا ضو يسير علوستاي اوغي ان صوفودينو ضو ان دهنو ضو لا ضو ولا دا افعربي ما لبديبا حرف طا ويا اهدنا الصراط المستقيم الى هذا مشاكل بدنا كايست حرف الطاء مكين كران لان دا يا ضا لذلك الشيخ رحمه الله عليه وحول جري يعني اسلامتا ما aragtay habarta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى أيها كسوافسن أو كسحسن وذلك الشيخ أعوذ بالله من الشيطان ده ليش؟ لأن يدو مركي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى صفات كي حرفكم بيقفتي مخرج يسوي كأنت لأن ذلك يطاد واسم مخرج كشيطان مركات له هي شيطان صفتي بعد قفتي مخرج كي ما تقفتين لكن هذا شيطان تلاهي مخرج كيف ما يسد ما أنت في المخرج بركة توفيق الله نوافجيه إن شاء الله القرآن كان كده داله ونحن يعني أهل الصومال وأصلا للقرآن وي بلد كان أنجونا يوضمنا جونا النعمة وين باتها أنكفى إليه سنة بفضل الله تعالى شاء الله سعطان الحمد لله أئمة حلوه وناكسن وحفاظه أيام ملك استجوب guriga aad degantahay mandaqada aad degantahay imaamka kula tukada baad ka faa'iideysan kartaa waad ka baran kartaa yani xujaha ka dhigan fulaan iyo cilaan baan waayo quraan baran maayo waad baran kartaa hadaad intaa weydaba macalinka la yiraaho computerka baa isagana ku bari kara oo ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr badan ku dhigay kulka quraanka ku wada dadaal aan baranno wallahu waliyyu tawfiq jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا ووفقنا ووفق بنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به يا رب العالمين.